magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa goor hore oo xalay fiidnimadii ka dhacay qarax geystay khasaare naf iyo maalba leh. qaraxa oo jugtiisa laga maqlay inta badan magaalada Boosaaso ayaa ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Boosaaso oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ilaalada dekedda, waxaana la aaminsan yahay in uu ahaa nooca dhulka lagu aaso. saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Puntland oo codsaday in aan magacooda la xusin ayaa warbaahinta Aloolo TV u sheegay in qaraxa uu ku dhaawacmay hal qof oo ka soo jeeda dalka Itoobiya laguna magacaabo Cabdalle Idriis Saalax, sidoo kalena uu isna ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ilaalada dekedda magaalada Boosaaso. sidoo kale qaraxa ayaa geystay khasaare hantiyadeed isagoo burburiyay guryo iyo gaadiid ka agdhawaa agagaarka uu ka dhacay. ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxaya hay'adaha ammaanka gobolka Bari oo looga hadlayo qaraxan ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Boosaaso. weerarada ka dhaca magaalada Boosaaso waxaa inta badan sheegta kooxaha taageersan Daacish iyo Al-Shabaab ee ku dhuumalaysta buuraleyda gobolka Bari.